simple future tense. Simple future tense. darsigan waxaynu ku baran doonaa tensiga loo yaqaano simple future. tensigan wuxuu ka hadlayaa waxyaabaha dhici doono mustaqbalka. Future simple tense ama simple future tense is used waxaa loo isticmaalaa to express in lagu qeexo ama lagu muujiyo an action fal ama ficil that will happen dhici doona in the future mustaqbalka soo socda. Simple future tense is used waxaa loo isticmaalaa to express in lagu qeexo an action ficil ama fal that kaasoo will happen dhici doona in the future xilliga mustaqbalka ah ee soo socda. Structure qaab dhismeedkiisa ama formalihiisa waxa weeyaan subject falsameeyaha ah dhammaantood I, we, you, they, he, she, itba waxay qaadan karaan will. si qaas ah I iyo we ayaa qaato shall weliba markay tahay su-aasha ay ku habboon tahay. I, we, shall waa dhihi karaa ama shall I ama shall we, laakiin waxay ku habboon tahay xilliga su-aasha weliba, laakiin dhammaantood will way qaataan. kadibna waxaa raacinaya verb ficilkii kadibna objectigii falku dhicihii. Positive sentences ama affirmative waa warbixin caadi ah, su-aalna aan ahayn, diidmana aan ahayn. I shall give him a nice gift. I shall give him waxaan siin doonaa isaga a nice gift hadiyad wanaagsan. I will waa dhihi karaa sidoo kale I will give him waa caadi. We shall come here tomorrow. waxaynu imaan doonaa halkan beri ama we will come here tomorrow. waxaynu imaan doonaa halkan beri toole. You will study Arabic. adiga waxaad baran doontaa Carabi. You will go to England. wuxuu aadi doonaa isaga Ingiriiska. She will give me a book as a gift. waxay isii doontaa book hadiyad ahaan ayay isii doontaa book. They will send us money. waxay noo soo diri doonaan ayaga lacag. Interrogative sentences ama questions waa su'aalaha. Shall I give him a nice gift? miyaan siin doonaa isaga hadiyad wanaagsan? Shall I give him? Shall we come? ma imaan doonaa here halkan tomorrow beri? marka laga reebo I, we, inta kale su-aashooda will ayaa lagu bilaabayaa. I, we waxay qaataan shall su-aasha waa sida ugu habboon. Will you study Arabic? Carabi miyaad baran doontaa adiga? Will he go to England? isaga Ingiriiska miyuu aadi doonaa? Will she give me a book as a gift? ayadu ma waxay ii sii doontaa book hadiyad ahaan? Will they send us money? ayaga miyay noo soo diri doonaan lacag? Negative sentences waa jumladaha diidmada ah negative-ka. I iyo we shall not ayaa loo isticmaalaa shan't loo soo gaabiyo. sidoo kale will not way qaadan karaan waa caadi oo won't loo soo gaabinayo. I shall not give him a nice gift ama I shan't give him a nice gift. sidoo kale waxaad dhihi kartaa I will not give him a nice gift ama I won't give him a nice gift. ma siin doono isaga hadiyad wanaagsan. We shall not ama we shan't ama we will not ama sidoo kale we won't come here tomorrow. ma imaan doona halkan beri toole. marka I shall not give him a nice gift. isaga ma siin doono hadiyad wanaagsan. We shall not come here. ma imaan doona inaga halkan tomorrow beri. You will not loo soo gaabiyo won't. You will not study Arabic. adiga ma baran doontid Carabi. He will not go to England. isaga ma aadi doona Ingiriiska. She will not give me a book as a gift. ayadu ma ii sii doonto book hadiyad ahaan. They will not send us money. ayagu ma noo soo diri doonaan lacag.